السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada Cabdi Bro kanaalkii dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad ugu barateen aan halkan ku soo gudbino barnaamij la xiriira dhinaca tiknoolajiyada dhalinyarada iyo talooyinka aanu siin jirnay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay marka koobaad meel kasta oo muuqaalka idin ka soo gaaraya Ramadan Mubarak Ramadan Kareem Ilaahay subhanahu wa ta'ala bishan barakaysan nabad iyo baraara iyo khayrkeeda hana waafajiyo muuqaalkan saaxiibayaal sidaad ciwaankiisa ka aragtaanba waxaanu rigareyn doonaa amaba aanu u labisi doonaa mid kamid ah kaamirooyinkayga kaamirada dhawaan soo iibsaday gaar ahaan bishii December ee sanadkan 2000 sanadkii tagay ee 2025 waana kaamirada loo yaqaan Canon C50Y kaamiradan waxa ay soo baxday bishii September ee sanadkii tagay waxaan soo iibsaday bishii December ee isla sanadkaasi waxaan rabnaa in halka ugu labisna waxaan rabnaa inaan u eegna kaamiradan iyo waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay waxyaabaha aan ku doortay aniga Cabdi ahaan waan u labisi doonaa microphone ayaan u xiri doonaa dhar qurux badan ayaan u xiri doonaa waan ka sheekaysan doonaa marka kaamiradan waxa loo yaqaan saaxiibayaal C50 ayaa loo yaqaanaa waa kaamirad cajiib ah waana my first cinema camera waa kaamirada ugu horeysay cinema camera ah ee aniga Cabdi ahaan aan iibsaday waxaan isticmaali jiray Canon waa taqaanaan R6 baan isticmaali jiray Mark II laakiin hadda waxaan isdhahay maadaama documentary aan sameyn doono qorshuhu igu jiro hadii uu barhaale ka noqdo 2026 waxaad u baahan tahay kaamiro culus oo miisaan leh isla markaana cinema camera ah marka bridge-ka aan kaga soo gudbay kaamirooyinkii hore ayay ahayd waana mirrorless camera saaxiibayaal waa Canon way mirrorless camera dadku waxay dhahaan ama waxay suuqa ku soo gashay inay tahay waxa loo yaqaan FX3 killer ama FX3ga Sony ayay la meel tahay waa kaamirad cajiib ah saaxiibayaal waxyaabaha aan ku doortay aniga Cabdi ahaan hadii aan dulmar yar guud idin ka siiyo saaxiibayaal aniga Cabdi ahaan kaamiradan aan u iibsaday waxa kamid ah waxaan horta inaan ku sameeyo documentary inaan ku sameeyo baan rabaa waa very lightweight way kaamiradan sidaad aragtaan saaxiibayaal aad bay u fududahay waxaan rabaa inaan microphone waxaan ku xirayaa lens ayaan ku xiri doonaa waxaan ku xirayaa 15.5 mm 2.8 oo ah lens aan aad u jecelahay oo qiimo badan saaxiibayaal kaamiradan waa lightweight kaamiro waa kaamirad aad u fudud boqolkiiba boqol marka loo eego kaamirooyinka cinema cameras ay lensos gaar ahaan C70 C8 C300 marka loo eegto kaamiradan iyadoo oo cinema camera waa very lightweight waa kaamirad fudud waay xitaa hadii aanu rigareyn doonaa oo dhar baan u xiri doonaa waan waa taqaanaa oo markaan rigareyno aan u labisnay xitaa wili waad arki doontaa how much ay fududahay kaamiradan in gacanta lagu qabta handheld-kan waa wax kale oo cajiib ah oo ay dad badan ku doorteen kaamirada ay leedahay handheld la qabsada sida marka loo eego kaamirooyinka kale sida R5C iyo R5 iyo R6 iyo malahan handheld noocan so I think maybe one of the first lens camera or cinema camera ay u soo yeelaan way sida soo dadku waxay dhahan Sony ayaa laga soo koobi karay so aniga waxaan isticmaalay C70 malahan handheld noocan camal ah oo XLR cable la qaadan doono marka handheld-ka wax kale cajiib ah oo aan ku doortay it's for filmmaker dadka filimada sameeya iyo documentary-da sameeya ayaa loogu talagalay kaamiradan inay adeegsadaan documentary-da sidoo kale cajiib bay ku tahay YouTuber oo upgrade gareynayo ama u soo guura ama soo upgrade gareynayo waxa loo yaqaan cinematic video sidoo kale waa u adeegsan karaa ama waxa loo yaqaan waxa loogu talagalay dadka eventiga doo ama eventi photographerada ama videographerada ayaa loogu talagalay saaxiibayaal kaamiradan hadii aan dhinaca kale ka eegna saaxiibayaal waxa ay duubeysaa color science-ka waa taqaanaa Canon marka laga hadlayo color science-ka cid ku gaarto malaha maybe dadka Sony way naga aragto weyn taas laakiin color science-ka marka laga hadlayo iyo skin-ka wax ku gaara malahan kaamiradan waxaa sidoo kale cajiib ah inay leedahay color science marka laga hadlayo wax loo yaqaan C-Log3 and C-Log2 ayaad ku duubi kartaa oo cajiib ah Rack 709ka oo straight from Canon waa sidoo kale waa ay leedahay oo kaamiradan waa ay duubeysaa OpenGate waa wax kale oo cajiib ah oo kaamiradan aniga Cabdi ahaan aan ku doortay waxaan rabaa inaan sheego disclaimer kaamiradan lama sponsor gareynayso aniga ayaa lacagteeda ku soo iibsaday waan ka hadli doonaa disadvantage-ka ay kamid tahay lacagta OpenGate ay duubi doontaa waxay sidoo kale leedahay XLR cable la saaxiibayaal iyo sidoo kale 3.1 cable-ada kale caadiga ah yar iyo XLR cable labaduba laba cable oo kala duwan ayay kaamiradan ku qaadaysan waana very versatile taas
حقدي marka laga hadla waa inter level for filmmaker dadka filimada sameeya inter level fiican waaye ay u tahay 7k ayay duubeysaa oo wax cajiib ah 120 frame per second kaale iska arag waa 7k marka laga hadlayo dhanka muuqaalada dhanka sawirada saaxiibayaal marka laga hadlayo sawirada ee still photos ay kamarada qaadaysa waa 32 megapixel per second ay qaadaysaa kameradan ma lahan waxa loo yaqaan IBIS ama internal body stabilization ma lahan laakiin lensada ugu badan ee RF ka aad ku xiri kartaa waxa ay leedahay IBIS ama internal body stabilization hadda kan amal on hadii aan dhaha so that means kameradan waxa ay yeelanaysaa waxa loo yaqaan body stabilization through the lens laakiin kamerada built in malahan laakiin waxa kale cajiib ka kamerada aniga aan ku jeclahay cajiilaha waxay leedahay dual SD card waana SD cardada caadiga ah iyo sidoo kale CF Express card bay ku duubeysaa marka laba card ayaa galaya kameradan oo kala duwan oo aad u adeegsan kartaa oo aad ku galaysaa HDMI the big HDMI cable-lada waaweynka ayaa galaya oo aad sidoo kale u adeegsan kartaa waxyaabaha kale kameradan ay tahay inaad ka ogaato waxay tahay saaxiibayaal waxa loo yaqaan open gate ka saaxiibayaal marka laga hadlayo open gate dib ugu laabto waxa way kameradan inay one time ku duubeysa muuqaal horizontal iyo vertical hal muuqaal ayaa duubi doontaa marka aad hal muuqaal duubta labada card baad kala dooran doontaa cardna waxay kugu duubeysaa muuqaal ready straight to YouTube inaad u geliso diyaar u ah muuqaal kalena waxa ay kugu duubi card kalena waxay kugu duubeysaa muuqaal straight aad u gelin karta TikTok ama Reels-ka oo vertical-lada loogu talagalay marka labada cardba waxaad u adeegsan kartaa straight ama YouTube ka toos u geyn kartaa ama TikTok aad toos u geyn kartaa marka waana wax loo yaqaan open gate something amazing waxay leedahay wax loo yaqaan inbuilt SD ND filter waa taqaanaa lensada lagu xiro afka lagaga xiro arrintaasoo kale inuu hadda ku xiran yahay kan uu ugu xiran yahay so ND filter saaxiibayaal waa taqaanaa ND filterada brightness ki waxa si loogu talagalay lenska afka looga xira ay la timaadaa oo inbuilt ah marka let me tell you guys dadkaan garanay ND filterada waa taqaanaa saaxiibayaal ND filterka waxa loogu talagalay mainly in uu control leerka sensorka kamerada gaaray anigu hadda waxaan ugu xiray African kala imaaday documentary baan kusoo sameeyay cabdi show ka daawan doonta barnaamijkii mahadsanid madaxweyne sagaalada jamhuuriyadda Maxamed Abdullaahi Farmaajo aan ka hagaajinayna marka inbuilt waxay leedahay waxa loo yaqaan ND filter so hadda lenskan ND filterka baa ku xiran sababtoo maadaama Africa qorax badan ay jirto gaar ahaan marka aan maalinta Dubai waxay ku qasbanay ND filter inaan ka hadalno marka ND filterada waan ka hadli doonaa iyo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin laakiin kameradan waa kan waa lenska ku xiran marka aanu ku xirin laakiin iyadoo waxay leedahay inbuilt ND filter ku dhisan oo loogu talagalay oo gudaha ah waana something amazing wax cajiib ah oo aadan malaysan karin waay oo aniga aan ku doortay maxaa ku soo haray face tracking laguma gaaro sidoo kale Canon marka laga hadlayo face tracking waxyaabaha aniga aan jeclahay kamid maadaama solo creator aan ahay oo anigu aan isku soo aadiya gacankan sida aan kamerada isugu soo aadiyo waa taqaanaa sida aan isugu soo aadiyo it's always good inaan ogahay wax aad aniga caawinay inaan ogahay waxa kamerada ay duubeysa so always waxa ay leedahay face track bay leedahay oo aan ku kalsoonaan karta 100% waa antijaabiyay aniga documentary-gaas mahadsanid madaxweyne waa aan ku duubay oo eye detection ah in indhaha labada qof ay ku qabanayso oo aadan ka walwaleelin waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka ah oo sidaan u xuseenin wax loo yaqaan gimbalkana aad baad ugu xiri kartaa especially haddii aad ka qaada qaybtan kore waa taqaanaan qaybtan kore ee handheld haddii aad ka remove garayso aad ka qaada this camera waxay noqonaysaa very lightweight camera bay noqonaysaa aad u fudud 100% waad aragtaan so lightweight ay noqonaysaa gimbal ayaad straight ugu xiri kartaa waan la kaale iska arag shaqada easy way lagama sheekeen karaa maxaan ka tagayaa 4K waan ka hadlay 7K waan ka hadlay log profile-ada waan ka hadlay waxay ku duubeysaa wax loo yaqaan C3 iyo C2 anigu waxaan adeegsadaa mainly C3-ga si aan muuqaalada ugu duubta
أنا شو مرة لقى هلا 709 كراج عادي كلا بروفيل كانون أيان أديك سنجري كاميروين كيجي هورا لكن هذا ما دام أنا أسوق جول السينما كاميرا وحان كو قصبنا هاي إن أنا برتا إسلا مرة أنا روح كدو وهذا وحي لقى باللعبة وحلا يخانا إن لوج بروفيل كنا كدو مرة شيلوك تري أيان كدو ولو على ده على دعاية كلا كروشان لكن I'll make sure in the next few months or few weeks إن أنا برتا سيدا كلر في عن قروح بدن لو كدو وأنا كوينس مركا كهذا اللي سنة فانتج كاميردان إلا هذا وحن نوتيس جري بتري ليفل كوا بتري consumption كوا very high حاجة مركا لقى هلا مركا لو كاميرده هي كهورة قارن R6 R5 كا ولقي يا maybe ساعد يبرد لبس ساعة إن بتري جاي هاي كاميردان بتري جاي الأد بعنتا وهديات 4K كدو بس أما 7K كدو بس less than 1 hour or 40 minutes أي بتري كدو بس مركا waxaad u baahan tahay dhowr battery inaad hayso waa taqaana batteriyada Canon aad ay qaali yihiin marka ay original marka batteriga haddii aad maybe dad remote tahay ama meelo gobolada joogto batteriga waxaad u baahan tahay 2 3 4 battery kala duwan long day ama waxaad isticmaali kartaa wax loo yaqaan V mount oo power haddii aad V mount haysato iyo gurto goomaanta oo dhan waxaad ku shood gareyn kartaa laakiin haddii aadan V mount haysanin waxaad u baahan tahay ugu yaraan 3 battery in a given day oo aad shood ku soo sameeyso marka batteriyada hopefully inay fix gareyso Canon oo ay taasi hagaajisa laakiin V mount di aad haysato iyo good to go aniga qorshe way ugu jawaan dalbanaya insha Allah hadda inay probably tomorrow or next day waa inaan V mount u helo maadaama aan Africa aaday V mount di aad u hesho maalintii oo dhan waxaad haysanaysaa power kugu filan waxyaabaha kale ee coins camera disadvantage ka waa fucking very expensive cameradan aad ay qaali u tahay 3,300 oo lacagta Ingiriiska ayaan igu fadhidaa soo inta meel qorata dollar u bedela maalmaha ma fiirin lacag leh ma soo dirin marka ma garan karo dollarka intuu joogo laakiin aan 3,300 oo dollar ba igu fadhidaa kamerada kale oo aan lenska ku jirin just the body waa taqaan the body only ba 3,300 oo pound igu fadhiyo استيكارada kuma jiraan batteriyada extra battery kuma jiro wax ku jiro marada all the board itself I remember maanta batteriyada everything markaan soo gina I think maybe close to 4,000 bay tagtay marka batteriyada in filter everything lagu daa 4,000 baan amal bay tagtay crazy bay ahayd wax xasuustaa marka kameradan saaxiibayaal noocaas waan jeclahay xaqi marka laga hadlo because waxaan rabaa inaan dhowr documentary sameeyo oo marka kamerad fudud oo aan qaadi karo oo aan la safri karo baan u baahanahay oo hadana cinema camera marka C50 saaxiibayaal waa kamerad cajiib ah marka waxaan rabaa inaan rig gareyno kameradan rigar waa taqaanaan waxaan soo iibiyay agabkii tiltaba waxaan ka soo iibiyay labiska kamerada marka asxaabtii dhan waxay u dhigi jireen oo kamerooyinkaaga R6 R5 maxaa u rigareen weys waxaan dhihi jiray ma u baahna inaan rigareeyo sababtoo ah culays bay ugu noqonayaan laakiin tan waxaan ku qasbanay inaan rigareeyo kameradan saaxiibayaal 100% culays kastoo ay noqoto way u qalantaa maadaama kamerad aan documentary ku duubay ay tahay riga waa wax muhiim ah inaan rigareyna oo aan u labisna dhar u xirna waa wax laga maarmaan bismillaahir rahmaanir rahiim okay agabkan waxaan ka soo iibiyay Amazon ma ka dalbay hadday ka imaadeen Amazon marka waa waxa loo yaqaan saaxiibayaal waa rigi kamerada waay so waanu furayna bismillah ayaa perfect okay rigan labiskan waxa laga siiyay 140 pound oo 145 pound boo waxa rigan oo kamerada lagu rigareynay ee aan ugu labiseen dadka haday aanay rig fahmeen loogu labisay labiska kamerada baa la so boxki ayuu ku jira rig oo aragtaan waan ka furnay bismillaahir rahmaanir maxaa ku jira tolow bismillaahir rahmaanir tawakkaltu ala allah okay bismillaahir rahmaanir rig waxa ku jira agabkii loogu labisi lahaa kameradan waxyaabo badan baa ka caawinay sababta loo rigareeyay horta kamerada maxay tahay maxaa loo rigareeyay kamerada waxa loo rigareeyaa dadka qaar inay culays u sameeyaan heavy maadaama kameradahan run and gun ay tahay ee documentary gacanta ku duubeyso si aadan u shaking gareynin waa inaad xogaa miisaan ku dartaa culays ku dartaa haddii kale markaas waxaad u baahan tahay inaad gimbal ku xirto ama tripod isku dawado and you don't need to do that ma fahantay professional si aad muuqaal fiican oo stable ugu duubto waxaad u baahan tahay xogaa miisaankeeda inaad kordhiso marka miisaanka waa wax ugu muhiimsan waa wax labaad waxa koowaad laakiin waxay tahay protection in kamerada haddii ay dhulka kaaga dhacdo ay wax soo gaaraan at least aad sidoo kale difaac guud u hesho oo qurux badan I mean
tan saddexaadna waa kaamiradu ay qurxinaysaa waana arki doonaa markaan u labisnay in qurux ay kusoo kordhisay iyo in kale kan waxa uu leeyahay halkan dabcan kan waxa uu leeyahay kan waan gartay meesha uu leeyahay halkan buu leeyahay waa gacanka kore waaye top handle-ka buu leeyahay kan I'm glad inay wataan bahalihii lagu xidhay screwdriver-radii inay wataan waan ku faraxsanahay marka waa kan hay xagga saar وأدركتان صاحبي الكشكي كان حقانو آديا سي علاس كالعال هدي هالكان كده شمان تودن سيادو قبستنا هالكان بو آديا وصير تركيز بهالو وحرو وطا هالكان I like it وأدركتان هالكان سيدو كلا لير باتكو حري كرتان صاحبي الله صعودة لير باتكو ماونت قرين كرتان لكن وأنا هاندل أو external أو كيج كان وقتي وهاندل قروح بدن أو professional بو وطا وأدركتان صاحبي this sidoo eegay sidoo kale wow amazing I like the handle riga xagga markaan iska dhigna saaxiibay waxaan u baahanaa microphone baan u baahanaa waxaan soo iibiyay waxaan ka niyad jabay saaxiibayaal oo aan ka guuri doono 2026 wax loo yaqaan Rode Go2 baan ka guuri doona boqolkiiba sababtoo ah barnaamij aan Soomaaliya ka soo duubay waxay iga qabsatay door cod ciladan baa iga qabsatay haddii aad ila dhageysataan لكن very bad marka inta Soomaali joogo waxaan go'aan ku gaaray markaan laba dib ugu laabtay inaan ka guuray gabagayga Rode oo aan u guuro product ama company kale waxaan u soo guuray Sennheiser waxaan soo iibsaday ama aan u guuri doonaa midkii ugu horeeyay hadda soo gaaray kale I don't know ma aqaan waxa dhacay hal xaba ii keeneen kan kana kulli dhaxdo ku soo jira waa MKE 600 shotgun microphone ama boom mic waxa loo yaqaan ayaan dalbaday saaxiibayaal oo ah Sennheiser company la Sennheiser baan u guuray marka waa taqaanaan MKE 600 waa taqaanaan saaxiibayaal waa microphone cajiib oh my god this is amazing and because waxaan u baahanahay full kamerada markaan adeegsanayo mar raba inaan microphone wax isku dawado everything waxaan rabaa inaan kamerada ku xiro phantom power aan u iibiyo dabada kaga xiro oo full day shot ah microphone-keeda aan ku xiro leerkeeda aan ku xiro good to go tripod iyo gimbal waxaan iska dawado mar raba marka waa inaan u helaa microphone fiican oo shotgun ah oo professional ah waxaan go'aansaday inaan soo iibsado marka microphone-kan dad badan waa u yaqaanaa industry ku jiro waa Sennheiser waana MKE 600 Sennheiser boot microphone waa cajiib ah oo aniga aad u jeclahay Rode marka uu dhaqankaasi ugu sameeyay qarqaraas oo bilaabay waxaan go'aansaday inaan ka guuro marka in ka badan 10 sano ayuu industry ku jiray MKE 600 ama MKE Sennheiser waa taqaana microphone-deeda microphone-kan wuxuu ahaa 200 iyo konton I think 250 guinea buu ahaa lacag Ingiriiska baa laga soo siiyay aniga shotgun microphone hit and run documentary saaxiibayaal ayaa loogu talagalay microphone saas ayuu halkaasi u galayaa waxyaaba cajiibka waxaa kamid ah microphone-kan waa XLR cable waa female XLR cable buu dabada ku wataa iyo sidoo kale 3.1 jack port buu dabada ayuu leeyahay oo any microphone aad u adeegsan karto marka waad aragtaa microphone saan u noqday XLR-na waad adeegsan kartaa laakiin aniga hadda kan buu ku imaaday oo uu la yimaada cable-kaasi ayuu la yimaadaa exactly waad aragtaan waa taqaanaa halka la gelinayo automatically sidoo kale qurux buu ku darayaa batterigiis haddii aan microphone-ka wax yar haddii aan ka hadlo batterigiis waa phantom power-na waad ku charge gareyn kartaa waxaa kaloo aad ku charge gareyn kartaa saaxiibayaal waxa loo yaqaan let me show you AA batteriyada AA-da ee balbalaaran ee labada xaba ah waad wada taqaanaan ayaa sidoo kale galaya hal xabo marka anigu always waxaan adeegsadaa marka double A battery laga hadlayo ayaga oo rechargeable ah ayaan adeegsadaa qaybta description-kana waad ka dalban kartaa waa rechargeable way 1 week long buu aniga ahay cabdijaliil lahaa battery rechargeable-kii aan adeegsado marka maybe haddii aad rabto batteriyada noocaas waad adeegsan kartaa waa battery cajiib ah oo aniga jeclahay recommendation-kooda lagama sheekeyn karaa waana noocaasi marka phantom power-na waad ka dabayn kartaa sidoo kalena batteriyada double A waad ka dabayn kartaa labaduba haddii aad power haysanin battery AA batteries-ka lagama sheekeyn karo Sennheiser marka let's put it here bismillah rahmaan halkan baan gelin doonaa and then we need to close from here halkan waa inaan ka xidhnaa boom your mic
everything halkan baad ku wadataa microphone-kan waad aragtaa. It is amazing. This was a dream setup saaxiibayaal for some time, but alhamdulillah finally way ii hargashay. Full setup baad haysaa saaxiibayaal. Microphone-ka waa kan, leerka haddii aad rabto, it's not with me right now. Midba hoos iyo yaalo waa isticmaali, laakiin leerkan halkan baad ku xiri kartaa saaxiibayaal haddii aad u baahan tahay. Microphone-ka waa kan, gimbal ma u baahan sababtoo waa very heavy for now. Culays wuu kugu filan yahay, shaking ma jiro. Phantom power baad dabada kaga xiri doontaa, insha Allah waa dalbanaya. Phantom power baad dabada kaga xiraysaa oo aad ka power gareyn doontaa. The whole setup baad Phantom power dabada kaga xiraysaa, maybe oo one day loogu talagalay. Wow, Osmal Rig baad ka heli kartaa, marka isagan description-ka ayuu yaalaa. This is a full setup saaxiibayaal, wada aragtaan. waxaad tahay full powerhouse documentary hadda diyaar baad u tahay full powerhouse crew ama crew dhameystiran baad tahay hadda from cameradii codkii sawirkii everything halkan baad ku wada haystaa into a small such amazing setup ka sheekay saaxiib setupka ka sheekay horta kasoo warbixi waad aragtaan cameradii saas bay u ekaatay markaan regraynay microphone-ka aan ku xirnay wow this amazing saaxiib yaal maybe waxaan ka baqayaa in podcast-yada aan joojiyo oo intaan dabada qabsado Soomaaliga oo dhan aan la soo maray laakiin ma rabo inaan shaqada aan ballan qaadnay ee bulshada aan u hayna aan ka weecino laakiin this is another setup saaxiibayaal maybe sanadkii 2-3-4 documentary baan ka shaqeyn doonaa one was successful already u dhacay laakiin mid iyo laba baan ka shaqeyn doonaa oo geyga Soomaalida aan ku tagi doonaa laakiin this is the full setup saaxiibayaal aan wada haysano wada aragtaan it's amazing setup finally and like gacanta ku qabso waxa waaye kaarkaaga buuxso magaalada gal saaxiibayaal aad u mahadsantiin everything oo aan halkan ku soo sheegay maba agabo aniga aan adeegsado qaybta description-ka hadii aad tagto waad ka dalban kartaa hadii aad qaybta description-ka wax ka dalbata oo ay ku imaadaan oo aad ka dalbato aad fahmi weyso make sure inaad fariin ii soo dirto oo aad igu dhahdo Amazon baan agabkan ka dalbaday linkigaaga baan raacay waxaan u baahanaa agabkan sida loo isticmaalo inaad fahansiiso laakiin hadii aad inta magaalada wax ka soo wacdo oo kaali wax iga caawiyo ugu dhahdo I don't want to be selfish laakiin ma lahan saaxiib laakiin at least si aan soo promote garay everything hadii aad equipment u baahan tahay description-ka YouTube-kayga baad tagi kartaa everything aniga aan adeegsado halkaasi ayaad ka dalban kartaa Amazon everything adduunka meel kastoo joogto markaad iibsato hadii aad fahmi weyso fariin ii soo dir saaxiibayaal waxaan diyaar u ahay inaan ku caawiyo oo aan ku fahansiiyo marka sadabkaana ka soo qiimeeyay saaxiibayaal xageen geyga Soomaalida ka soo bilownay inoo sheegay shaqada meeshan ka soo bilaawday so microphone-kan very amazing microphone very amazing microphone boom noocan uu ekaan doona aan interview-da baa adeegsan doona mid kale markuu ii imaado so dadka microphone-man labelka loo xiro waan joojin doona insha Allah kuwan boom microphone baan u xiri doona professional si qofka madaxiisa u yaala laakiin waa microphone cajiib ah oo aan jeclahay aad u maasin saaxiibayaal muuqaalka aad buu noola dheeraaday barka kaamirada baan ku riigaraynay guuli gobnayn rajayna kanaalkan dhalinyaro Cabdi Show waxaan ugu soo gudbin doonaa barnaamijyo muuqaal 2026 marka make sure inaad subscribe gareyso oo nagu soo biirto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guuleysta